السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن ولا لا channel كدقن كابا كحرن وأنا سلامي سلام كدب ما أنتو حندين soogudbinaya muuqaal ku saabsan qaabka marka aan wax ku soo gudbiyo in badan dadku waxay soo weydiiyeen miyiba joogtaa xaggeed internet ka heshaa xaggeed koronto ka heshaa yani su'aalaha inta badan la soo weydiiyo meelo badan haday TikTok tahay iyo haday YouTube ka tahaba marka maanta aan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo waxaan leeyahay marka soo dhawaada halkaan ayuu ka bilaabanayaa muuqaalkeenu halkaan waa xaafadda aan seexdo xaafadda horta muuqaalka mar hore aan duubay markii aan ka guureynay xaafadii kale ee deganeen marka xaafadan baan seexdaa reemigii waxaan ku kanaaca wadankii iska timid xilliga roobka marka sinsiyeeriyaal ama shandarwasa oo taqaanid ayaa la xirtaa marka halka xal la seexday hadda waagi bariyay xaafad laba xaafadood weeye ayaan u dhaxeeyaa xaafadna waa xaafadda gabadha walaashay xaafadna waa xaafadda wiilkeeda anigana waa wiilkeygii marka maalinkii dhan xaafadda kale ayaan joogaa maadaama reerka kale reer cusub ay yihiin oo ilmay midna aysan u joogin oo qalabkayga wax dhan yaala habeenkiina halkaan u soo hoyaadaa marka hadda waan macsalaamay waa subaxii kursigaas subaxdiina halkaas aan u sii qaadaa habeenkiina halkaan aan u soo qaadaa dadka qaar baa laga yaabaa inay isdhaan reemigu maxay tahay kursiga xagee laga keenay horta ilaahay baa mahad iskale wallahi kursigaas anigu runtii aad baan maxay tahay ugu mahadiyo wixii reerka keenay way wax badan buu iga anfacay waadna arki doontaan kursigu qaabku ku yimidna waxay tahay reerka cusub arooska soo kordhay ayaa maxay tahay markii la dhisay ayuu guriga yimid qodax baa igu dhagtay ama geed caadaad la yiraahdo geedkaas waa dhibay marka reerka kale waan ka imid subax hore weeye qorraxdu hadii soo baxday in adigu malaha waa nuskii saaco kale marka gurigii kale imid oo diban soo rogay xaafadii kale dimarra laga kacayadina shaqada ugu horeeyaan qabto waxay tahay solar waxa u jeedaan dad badan baa soo su'aala xageed mobilka ka dabaysata ama qalabka wax ku dubto hadaba ila arka waa kana waa solar baa loo yaqaan qorraxda ayaa keenaysa maxay to dab dhalinayso qorraxda dab laga dhalinayaa waa laba xabo mid weyn iyo mid yar marka midka weyn aniga gaar isticmaala midka yarna reerka ayaa isticmaala marka qorraxda loo jeedinayaa isla nuska saacba maxay to qorrax buu dhalinayaa halkaan waxa weeye gudahan waxa loo gelinayaa ka banaanka qorraxda baa dhigayaa gudihiina waxa ku jira qaybisooyinkii ama mobiladii ayaa gudaha ama meel hoos la dhigayaa marka shaqada ugu horeysa subax kasta markaan indhaha kala qaado salaadii tukado waa shaqadan dadku meesha xoolaha ka raacaan anu midana shaqada aniga waxaan ku yiri soo warama oo wariye halka ka soo waramaya ah marka asxaabta in badan su'aalaha soo weydiinaya waadinka u jeeda reemigu qorraxda ay dab ka helaan wax weeyde waa horumar iyo casri marka ma sha Allah waa ka qorraxda Ilaahay nasiyay ayaa dab noo ah qaybisooyin waxa jira sida korontada kala qaybisooyin ay dadku haystaan marka qaybisooyin yar oo solarka loogu talagalay jira waan bartay waxaan marka qaar waa electronic iska go'ayaan marka subaxdii waxaan ku wada hagaajinayaa maynisi balas bay u kala baxaan wala kala ilaalinayaa runtii 10 badan baa miiga ka bartay ama waxyaabo badan oo electronic ku saabsan reemiguna waa dad xadaarad badan wax walba sidii u fahmayaan aniga waqti bay ugu qaadatay in la kala fahansiyo xitaa markuu halaabo ama ka xumaado iyaga sameys looma geeniyo waxaad arkaysaa marka qaar markii alaabahan qaar ay isticmaalayaan ay reemigu ka xumaado tan oo kalimaad waxyaabo badan markay ka xumaadaan ama ka halaabaan in ay gacantooda ku sameystaan marka wadinka u jeeda laba solar baa taalay labadii solar telefoonadii reerka telefoonada qaarna reerka reemigu casrigan la joogo badan ama mobilada la wada qaatay waliba kuwan beer salaaxa la yiraahdo iyaga beer salaaxa ka bartay dashaashad baa u naqaana dadka magaalada joogay marka telefoonadaas way wada qaateen reemigi ma sha Allah waa la iska wada hormaray marka shaqadeena halkaas saakay ku socotaa runtii hawl fudud kuma soo gudbiyo maxay tahay ama si sahal muuqaalada kuma soo gudbiyo marka qaar waxa laga yaabaa in maalin dhan marka roob da'ay ay soo qorrax imaan maalinkaasna waxa weeye chargerkii aan la helin qalabkii aan wax ku duubay maalinka oo dablaan iga noqdo kulay xaalado badan oo halkan aan ku soo koobi karin ayaa maxay tahay kala kulmay ujeedaan waa power bank reemigu dhagax bay dhahaan marka power bankaas wax badan baan haystaa ilaa 5 xabaan haystaa marka qaarna waxa dhacda inaan qaar kamid magaalada u dhiibto qoronto si la igu soo dabeeyo mobilada waxa laga yaabaa marka qaar inay maxay tahay dablaantaas oo kale koronto way u baahan yihiin marka qofkii miyi aad ama wax soo duubanay isaga laftiisa waxaan kula talaa horta marka ugu horeysa laga yaabo dad badan oo soo weydiinaya ama jeclaystay miyiga inay wax ka soo diyaariyaan ama ayaguba sidoo nool ahaan ugu tagaya power bankaas kala qaado
kadibna marka qaar magaalo geey si mobilka markaa kaliya aadan solarka kaliya uga halayn markaa solarkuna inta badan wuxuu ku xun yahay dabhayntiisa yar oo waxa weeye dab in badan kuma hayni horu ka dhacaya isla markiiba marka waa aniga halkaa wax ku dabaysanaya dee qalabkaas aad u jeedaan halkan waa meesha mar walba aan reerka ka deganahay aan wax ku soo gudbiyo hadda muuqaal baa ii diyaarsan waxaan doonayaa markaa muuqaalka in internetka aan soo geliyo ama youtube-ka aan soo geliyo asxaab badan waxay soo weydiiyeen maxaad wax ku duubataa horta telefoonka idiin muuqda iPhone-ka 12 ayaan wax ku duubtaa runtii camera markii la yiraahdo iyo telefoonka iPhone-ka horta lacag ahaan kaamirooyinka qaar way ku lacag yihiin qaarkoodna way ka lacag jaban yihiin qaar ka lacag badan way jiraan laakiin aniga hal kamid iPhone-ka ku doorto waxay tahay de in uu ka sahlan yahay kaamirada oo de maantay adigu aad isku duubi karto marka si walba taa muuqaalada horta idin soo gudbinaya telefoonka iPhone-ka ayaan ku duubaa halkaas aan ku xirxirayo internet baan kaga raadinaya oo waxa weey udubkaas ama tiirkaas aad taqaanid ayaan soo qaatay kadibna waan ku xiraya xarka lagu xirxiraya kadibna de wasla arki doonaa runtii internetka aniga hawl yar uma maro in badan adinkoo jiifa adinkoo fadhiya ayaad i daawataan laakiin anigu internet anigoo fadhiya ma daawado mana fiirsado waxna ma soo geliyo marka ay ugu dhowdahay waa mar aan taaganahay marka wax la soo gelinayna qadku wuu culus yahay marka maadaama internetku culus yahay halkan ayaan ku xiraa udubka dheer ama tiirkaas aad taqaanid ayaa lagu xirayaa kadibna ooda ayaan sii dhaxgelinay xarig baan kula xirayaa runaantii waxa ayaan daraa horta aniga muuqaalada dhibkaan u mara oo waxaan ku maalin qoraxda u taagan oo hadba eegaya inuu muuqaalka dhacay in kale qoraxda u taagan runaantii qoraxda xitaa xanuun baan ka qaaday waayo de xitaa xilliga qoraxda aad u kulada roobku da'ay oo guuga aad u kuleelka ahaa ayaan wax soo gudbinay marka qoraxdaasna waxaan ka qaaday runtii madax xanuun badan baan ka qaaday ayadoo marka intaan dib u mariyo dadka qaar baa muuqaalada degsida Facebook page geeya aniga Facebook page waan leeyahay runaantiina uma quuro waayo de YouTube kan jeclaystay inaan wax ku soo gudbiyo waxa inta dhibka aan u mariyo laakiin dadka haba soo qaataane xitaa magacayga may xusaan marka dadka waxaan horta idin leeyahay anigu muuqaalkayga waan idin quuray waayo anigu waan awoodaa page walba hadda inaan dacwad ka gudbiyo way fududahay inaan dacwad gudbiyo ma fahantay maadaama anigu muuqaalkan aan xuquuqdiisa aan leeyahay laakiin waan idin ogolaaday waan idin quuray anigu page-kayga u quuri waayay adinka laakiin waxa ceeb inta inaad ii quuri weydaan inaad magacayga xustaan amaba aad dhahdaan de gabadha channelkaasi leedahay booqday yani inta inaad garab istaagtaan si markaa aniguna aan meel u gaaro ama xitaa 100,000 ugu yaraan aan gaaro hadda wax yar iiga dhiman tahay walaalihi gaarsiina aad baan ugu mahad celinayaa markaa si walba tahay walaalaha mar walba muuqaalka isla markiiba dajinaya aad moodada inayba sugayeen anigu waan la wada socdaa inta ugu badan runtii aad baan uga xumahay inaad magacayga xitaa wax dhiiwadan xitaa gabadha qofka dumarka hala taageero ama maxay tahay channelkeeda hala booqdo way taageero subscribe-ka la ii saarayo inta xitaa taageero ayay ii noqonaysaa way jiraan walaalaha qaar waliba hal wiil ayaa kamid ah oo markasto muuqaalkayga soo qaata hadana linkiga ku soo dara Facebook-ga maxay tahay markuu soo dhigto page-kiisa hadana waliba dadkana ku dhaha gabadha hala taageero walaalkaasna waxaan leeyahay maax baa maleen inay ugu qoran tahay hadii aanan qaldin aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalaha kalena waxaan leeyahay de anigoo inta dumar oo inta dib maray adigoo raga oo de page-kaaga intaas 100,000 ama ka badan ay ku xiran tahay inaad muuqaalkii soo qaato hadana maxay tahay aadan qofkii laha aadan xusin ama in yar xitaa aadan garab isin aniga muuqaalkii ku ogolaaday runtii waxaan dhigi karaa de waa kugu damiir xumo laakiin si walba tahay waxa tiin kulay dadkayga baa tihiin inta kadib waxna aad iyo aad ugu mahad celinaya walaalaha mar walba ii dhiirigeliya yani waxaan haystaa dad mar kasta aniga hore ii wada dhibka ilowsiya maxay tahay aad iyo aad ii taageero oo runtii aan wax kastoon maro aan soo maro aan ku iloobo walaalahana walaalaha channelka ku xiran fariimaha ii soo qoriya iyagoo ay daawanaya like saaraya ay hadana fariimo dhiirigelin ah iisoo qoran fariimiina mar walba waan aqrisadaa marka ma sha Allah waxaan ka sii qadaa dhiirigelin marka xaalkayga halkaas ayaan wax ku soo gudbiyaa walaalihii su'aalaha isoo wadi jiray dabka qoraxda ayaan ka dhalinaa internetkana dhibkaas aan u maraa kullee deegaan walba waxay ku xiran tahay sida internetka looga helo meeshaan dhib badan baan ka soo mari jiray meesha hadda degnana sidoo hore way dhaantaa marka markasta dad mii tagtid de adigoo fadhiyo adigoo jiifa internet maxay tahay ma arkaysid
muuqaalkana markii la gelinayo meel muuqaal la gelin muuqaalku wuxuu qaadanayaa de awood badan buu leeyahay laga yaabaa internetka isagoo iska daciifa waad ku isticmaali kartaa aaladahan la isticmaalo laakiin markaad muuqaal soo gelinayso xaalku aad buu adag yahay muuqaalada qaar ba wallahi waxay u qaatay dhowr maalmood maalin dhan badanaana muuqaalka aan idiin soo gudbi jiray muuqaalka ugu yar maalinka aan ku farxo inuu idin soo gaaray idin soo dhacay wuxuu qaadan jiray 4 saacadood yani muuqaalka wallahi igu farxada badan la in iraa wallahi maanta internet baan helay 4 saacadood buu igu dhacay muuqaalada qaar 6 saac muuqaalada qaar 1 maalin muuqaalada qaar 3 maalin waxa jira muuqaal socday oo inta aan qadka ka bixin oo mar walba daciif ku dhacay marka si walba ahayd anigu ku faraxsanahay waayo de waxaan dib loo marin lama dheefsado yani intaas inaan wax soo gudbiyo hadii intaas oo dib iyo qorax iyo aan soo taagnaa haddii aan ka wehsan lahaa de waxaan ma dhici lahayn ama muuqaalada idma soo gaari lahayn intaa kadib insha Allah biidnillah muuqaaladeena hakad bay gali doonaan waxaan jeclahay wax walba inaan la wadaago waayo dad igu xiran ayaga waa isuga ayaa tihiin marka muuqaaladeena muddo kooban ama maalmo ah ay hakad gali doonaan insha Allah kadibna waxaan noo bilaaban doonaa muuqaalo intii ka duwan ومحيتو ككلا بدلن إيويل بديجان عصب إن شاء الله مقالة عن سوادنا وحنا قدرنا عند مقالة الرجع أنت بدل مقالة دمر كدي عنا كرنتي الراعي دي بان كل ما يرسل مركا رجع إيسا سمرة أنت إيسو داوتشر نهار تأد بقوم هسنتين هاد كدبنا إن شاء الله وحن محيتو كوبلا ودنا مقالة حاجة دي الله ودل إدمو شقوين كالرجع الرمي وقبنين ومي مركل تشوجد الرجع يدمر بشقوين كلا كلا قبتها مركا إن شاء الله deegaan kan ka duwan iyo maxay tahay muuqaalo ku hore ka duwan ayaan soo gudbi doonaa kana taya badan markastana adinkaan waxaan ku ahay runtii muuqaaladii horena waxaan dhihi karaa aniga waxay ii ahaayeen oo tijaabo iyo dadku siday dhaqankooda u jeclaayeen balse haddii Allah awood la idmo hadda kadib waxaa la idin soo gudbi doonaa dadkii dhaqanka ehelka waa kan laamiyada ka agdhow dhan waa dhul xadaaradan damba la haysta ama siire magaaloobiya laakiin miigii saxda ahaa إن شاء الله ينتهي دونا وميجي الصحة هم مركان كلها هنا دت كويسيك اللي فوقين دت بقولي دقن كي هو كل جن أوريه ده السنية محيطه ده أوريه كجورية محيطه جيل يحول بدن يود سيدي أصل جاه هذا ورقمية دنا دت محيطه حتى هذه جيل اللي أنا وهذا مثلا جيل وكلام لنا هاي مسوق جدبين وحيوان مسوق جدبين وها ده جيل الراعية جيل تشيلوا الراعية إن بدن الراعية محيطه ده أصل كامون هين جيل وحوها أنت مال biyo loo dhigay de halkaas ka daaqay markii jidaalka tahana badar la siinayo maxay tahay aan wax yaani aan ku xiisa gelinayn yaani sidii magaalada kale u dhaqmaya markaas si walba ay horta reegal gaduud waan mac salaameeyay insha Allah biidnillah guriga wax ka soo gudbi jiray insha Allah laakiin haddii Allah awood la idmo muuqaalada xiga waxay noqon doonaan dhulkii saxda ah hawdka ah inta badan dhulka hawdka ayaa mid dambeeya sababta dhulka hawdka ah baawurtu ama gawaaridu ma gali karaan dadka hawdka joogan oo dadka xoolaha badan haysta ama geela badan haysta kasta dhulba oo dhulka hawdsan yahay waa dhulka dhaqanka ku dambeeya midna hada gobolka galgaduud dhul waxa jira dhanka bari oo hawdka ah midna xiin dheer oo kale xaga aniga bariga iga xigo kale waa dhul de hawda oo waxaan ku yiri asalka dadka reemiga asalka ahaa laga helayo laakiin halka cilada jirta waxay inaan dubitaan loo ogolaan in qalab la geeyo ama telefoonka caadiga xitaa lama ogola wax dubida leh marka horta gobolka galguduud uu kala baxaa qayb hawda uu leeyahay qayb saxara uu leeyahay qaybta aan joogay qayb dhexe ahayd intaba uu leeyahay marka si walba ahad gobolka galguduud intaas ayuu maxay tahay noogu eg yahay muhiimaduna waxay tahay marba dhaqanka Soomaalida si loogu kala duwan yahay in lagu kala faa'iideysto waayo waxyaabo badan baa lagu kala duwan yahay haddii Allah awood la idmo marka muuqaaladeena hakad bay geli doonaan ina soo duceeya insha Allah safar baan ahay soo duceeya in Ilaahay safarka igu nabadgeeyo walaalo badan waxaan leeyahay walaalaha qaaliga aad baan idin jecelahay mar walbana runtii adinku baa sabab u ahaa inaan intaas oo dhan aan sii socdo aan tagi doono dhanna waa meel aan family ku leeyahay yani meel kasto oo aan tagayo inta badan waa meel dad family ay joogan insha Allah muuqaaladana sidiisa ka qurux badan ayaan idinku soo gudbi doonaa marka meeshii magaalada u ekeeday baawurta lagu guuray waan idinka wareejiyay waan idinka raray mar dhow insha Allah miigii saxda ah iyo dhulkii libaaxyada lahaa iyo dhulkii waraabayaasha lahaa in badan waxay soo weydiiyaan meeshan miinan bahala lahayn miyaan maxay tahay arigan la xariirin muxuu yahay hadaba dhulkii bahalka lahaa hadaa doonaysaan haddaan u socdaa ii soo duceeyay aniga waraabo ari ka cilnay insha Allah mar dhow waad arki doontaan waxaan ka codsanaynaa inaad ii dulqaataan inta aan safarka gali doono deegaanka aan tagi doono haddaan ka soo hordhaco kolley waxay noqonaysaa meel maamul ahaan ismaamulka Soomaali galbeed ka tirsan insha Allah
ayay noqon doontaa runtii internetku intii uu ka dhib badnaa doona ma ahane xitaa meelaha qaar waxaan ku yiri telefoonka caadiga ee lagu hadlayo ayaa ciriir ku noqon doona marka Soomaalidu waxay tiraan nin tuur la soo seexda ma waayo waxaan kugu soo gudbi lahaa insha Allah ma way doono inta adinkay garab taagan tihiin hadii Allah awood la idmo muuqaaladana insha Allah maadaama aan dhaqanka ka hadlayo magaalooyinka kuma soo dari karo walaalaha qaar ba waxay ugu dheen faloogiya magaalooyinka noogu soo dar marka magaalooyin insha Allah kuma soo dari doono channelkan wuxuu noqon doonaa baadiye oo kaliya dadka qaarna waxay aad mar walba ii weydiiyaan baadiyaha joogta magaciisa noo sheeg laakiin insha Allah mar walba waxaan ku dadaalayaa meesha aan tago meesha ay hoos timaado deegaanka ay tahay inaan la wadaagi doono sida hadda anigu marka hadda meeshan safarka u ahay waxay tahay ismaamulka Soomaali galbeed bay ka tirsan tahay dadka qaar baa Soomaalida Itoobiya marka ay aad uga xumaada marka insha Allah si walba tahay kale waa dhul Soomaaliyeed waa maxay dhaqankeeni muhiimaduna waxay tahay inaan meel walba tago yani meel kasto dhaqanka Soomaalidu ku dambeeyo inaan tagno oo maxay aan ka soo warano insha Allah marka gabadhiina wariye baadiye waa salaamaysa una soo duceeyo ducada ku soo kaaba reegal guduudna waxaan leeyahay maca salaam dadka waa ka badbadateen aad ba dadka indhaha uga gasheen gobolka mudug baan ka boodaya oo ii dhow insha Allah isagana aan jeclaa inaan tago inaan wax ka soo duubo laakiin mudug iyo galguduud walaal waa isku dhaqan waxba ma ku kala duuna waana isla dhulkii meel walba waxa yaala kursiga iyo joodari ba aroosada lagu dhiganaya dhaqankii waxaan ku waa la iska sii dawar go'ay wasla si dhaqankii marka meelaha hawdka ee lama galaanka ayaan kaga soo waramaya dhulkiinan caadiga banaanada xadaaradaha ay magaalada la haystay baawurta maxay ku guuriyay ku dhaansanay dad ilbaxay baa tihiin dadkiina ilbaxay insha Allah adinkana horumarkina Ilaahay idin siyaadiyo si walba tahay waxaan leeyahay soo duceeya dhaqanka badal intay runtii dhirigalisay kuwa dhalan rogmay dhaahisa dhabugu sheegtay dhaqan waxaan lahayn bay dhidbaha dhabugu tagtay cid kasto dhaliil tabaana say dhinaca sartay waa gabadha mayso ilaa xuma ka dhereeyay hadhan taal min dhaqan suubiyay dhinacna